waxaa jiray nin reer bani Israa'iil ahaa oo aad u cibaado badnaa. ninkaas waxaa la sheegaa sanadka oo dhan inuu soomi jiray marka laga reebo 6 maalmood oo maalmaha ciidka ah. ninkaas ayaa Ilaahay wuxuu weydiisan jiray in uu tuso sida shaydaanku dadka ay u lumiyaan oo Ilaahay tuso shaydaankii oo bini'aadamkii luminaya. markii uu Ilaahay ka baryay muddo dheer ayuu ducadii Ilaahay ka baryay waay. ugu dambeyn wuxuu ku sheekaystay oo naftiisa kula sheekaystay bal haddii aniga dambiyadeyda iyo waxa iga khaldan uu Ilaahay tusi lahaa taasaa iga khayr badnaan lahayd. marka Ilaahay wuxuu soo diray malag ku yiraahda hadal cajiib ah oo Ilaahay dhankiisa uga yimid. malagaas wuxuu yiri Ilaahay subxaanahu wa ta'aala 70 sano oo aad caabudaysay waxa kaaga khayr badan agtiisa كلمة آتري أو هدي أن أغان لها عيب تيدا إيو دنبغي إيو نقصان تيدا هدي أن أركي لها تاسا إي خير بدن. الشيكة هو الشيكة إسرائيلية أما الشيكوينك إسرائيليات كريرا هدو أو حكمة دو كجرتو سيدا دراتي قفك مسلمك أو حيابها لقربو وحا كمدا إن وحا إلهي وكربو وحوق صارا ونفتي سكو مشغولة ceebteeda ku mashquulo sida kibirka iyo xasadka iyo isla weynida iyo quursiga acmaashaas oo keeni karta in dadaalkiisa iyo khayrka uu sameeyo inay cunto uuna iska daayo in uu naftiisa cajabiso uu dhaho qof cibaado badan baa ahay qof karaamo leh baan ahay waxyaab la itusaa taas ayaa waxay tahay mid uga khayrka badan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala arinta qofku inuu ku dadaalo naftiisa oo ceebteeda ku mashquulo oo xaliyo wuxuu u dhaartay 8 jeer sida suuratu wash-shamsi ku jirta wash-shamsi waduhaaha ilaa waxa way aayada dhahaysa qad aflaha man zakaaha waxa guuleystay qofka naftiisa dahira oo xumaanta iyo maaragtay dambiga iyo macaasida ka ilaaliya. sida daraad waxaan isku dardaarmaynaa walaalayaal in aynu nafteena ku mashquulno waxa ka khaldan ku mashquulno ana ka tanaasulno in aan raadino waxyaabaha wanaagsan oo mucjisooyinka ah. qofku Ilaahay karaamo iyo wanaag siiyo waa fadli dheeraad laakiin waxa lagu saaray waxay tahay in uu qofku naftiisa toosiyo oo layliyo una adoomiyo Allahii abuurtay subhanahu wa ta'ala. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.